safiirka safaaradda jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ee dalka bakistan dejira marwe khadiijo maxamed al maqsuumi ayaa qayb ka ahayd kulan uu isugu yeeray ra-iisul wasaaraha dalka bakistan master cimraan khan dhammaan safiirada safaaradaha dowladaha islaamku ay ku leeyihiin dalka bakistan. kulanka oo ka dhacay magaalada islaamabad ee caasimada dalka bakistan islamar ahaantana uu shir gudoominayay ra-iisul wasaare khan ayaa looga hadlay sidii looga hortegi lahaa leeskana kaashan lahaa islaam naceebka dunida ku faafaya. ra-iisul wasaare khan ra-iisul wasaaraha dalka bakistan ayaa sheegay inay muhiim tahay in dowladaha islaamku ay dhistaan maamul oo ugu magacdaray raxmatul caalamiin authority si buu yidhi loo hormariyo korna loogu qaado sunnada rasuulkeena nabadgelyo naxariista korkiisa ahaatee. waxaa kale uu sheegay master khan in loo baahan yahay in manhajka lagu dhigo iskuullada dalalka islaamka lagu daro maado uu ku sheegay akhlaaqiyaad si buu yidhi ay u dhisto dhaqanka dhalinyarada islaamka ah. waa siduu hadalka u dhigay. dhanka kale danjire khadiija iyo dhammaan safiiradii kasoo qaybgalay kulanka ayaa dhankooda soo dhoweeyey hadalka ra-iisul wasaare khan ayagoona ku ammaanay master khan dadaalka iyo garab istaaga uu muujiyo iyo weliba siduu goobaha fagaaraha caalamka uu ugu hadlo arrimaha islaamka. kulanka master khan uu isugu yeeray safiirada dowladaha islaamka ayaa kusoo aadaya iyadoo dalka bakistan uu ka mid yahay dalalka islaamka ee sida mugga leh looga weyneeyey sanadan dhalashada rasuulkeena nabadgelyo naxariista korkiisa ahaatee. maxamed kaskey, warbaahinta qaranka dalka bakistan.